waa suuqa weyn ee Inchi ee Garowe habeenku waa sidan balse maalintii sidan uma dad badna sababtu waa dadka oo subaxii qof walba u jiheysta qorshihiisa u gaarka ah suuqan oo ah kan ugu weyn ee Garowe ganacsiga habeenkii ee magaalada waxa sahlay waa amniga oo ay haysato ganacsato fadhida laamiga hareeraha sida haweenka dharka celiska iibiya ee huudeyda loo yaqaan kabarada xaraashka meheradaha waaweyn ee camiran iyo shirkadaha waaweyn ee furan xilli kasta dhalinyarada habeenkii caweyska ku gaarta saqda dhexe gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo wadadan isaga kala gooshay habeen iyo maalin oo mararka qaar ciriiriga darteed wadadan hadii ay kugu xiranto sidan ayay noqotaa aad baa teamka Universal aan ku kulanay bartamaha suuqa Garowe gaar ahaan Inchi ganacsiga habeenkii ee magaalada Garowe waxa sababay qodobka ugu muhiimsan waa amniga magaalada maadaama xasiloon yahay magaalada nabdoon ay tahay ganacsatada habeenkii aan wax dhibaato aysan la kulmayn goobahooda ganacsiga markay joogaan iyo markay aadayaan magaaladaba ay si wacan u ganacsanayaan waxa kaliya ee sababay ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale habeenkii la ganacsado waa amniga iyo dadkii batay iyo isku hilowga magaalada oo ah caasimadii maamulka Puntland oo dad badan ay isku yimaadeen hawshana waxa ammaankeeda leh oo lagu amaanayaa dawladda Puntland iyo maamulka gobolka Nugaal ee hogaaminaya gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta meelaha qaar wadooyinka muhiimka ee Garowe habeenkii waa mugdi taas waxay dadka aan wareysanay intooda badan ay dhaleesha dusha uga tuureen maamulka degmada maadaama ilaysku qayb weyn uu ka qaato amniga iyo in xilli walba ganacsigu uu shaqeeyo ganacsataduna ay yihiin kuwa canshuurta bixiya marka la barbar dhigo Garowe magaalooyinka kale gaar ahaan koonfurta Soomaaliya inteeda kale waxa ay dad badan qabaan inay tahay magaalada ugu amniga wanaagsan haddaba dadaalkaasi waxa uu ku yimid iskaashiga shacabka iyo laamaha amniga ganacsatada saacad kasta anaga diyaar waxaan inay albaabka iyo inay furan yahay inaan shaqeyno waxa jira hawlgallo habeenadan lagu xaqiijinayo amniga oo guri kasta guri loo galayay oo meel kasta la marayay oo jid kasta la marayay waxa la xaqiijinayaa dadka bulshada nabadgelyadooda iyo amaankooda iyo hantidooda weey Cabdinuur Axmed Cali Xaashi waxa uu kamid yahay ganacsatada magaalada Garowe qof walba waa naga adeeg hadda meherada wacansan magaalada weey qof walba habeenkii haduu damaco markii haduu damaco ana guriga la soo wacaana noo furbaydahan oo sunnada waa fura waa siiya maadaama ay meherada wax badan ay tahay dad mararka qaar waxa dhacda 7 saac 8 saac hayno inaan mararka qaar qof u furo islaan oo musharaxa waxba loo rabaa kale inuu soo noqdo inuu dhibaato iyo shida ka baqayn alxamdulillah ma hadda askare Boosaaso waxay Garowe u jirtaa qiyaastii 329 kiiloomitir waa isha kaliya ee dhaqaale ee Puntland ay ku tiirsan tahay balse Garowe dadka ku nool inta badan waxa ay ka cabanayaan qiimaha alaabta qaaliga ah ee magaalada gudaheeda haddaba sababtu maxay tahay oo ay uga duwan tahay magaalooyinka kale Engineer Axmed Maxamed Muuse oo ganacsatada kamid ah ayaa ka jawaabaya xagga sicirka dadku badanaa markay noo yimaadaan kala gobolada Soomaaliya noogu yimaadaan kala waxay dhanno alaabtiin waa qaalisantahay sida markay ka yimaadaan gaalkacyo kala noogu yimaadaan dadku iyo Boosaaso kala markay noogu yimaadaan kala alaabtiin waa qaali bay yiraahdaan badanaa hadii alaabtu waxay ku xiran tahay qofba wuxuu hayo labadaba anagu waa keenna waxaasna waa xoro dacayada magaalada magaraysa u suuq galay ويا لو ركنا لعبت قالقة هذا لبضي واحنا قف كشيء وبعده هدوك واحد كواليتي ربنا كواليتي وهنا هدو مقران سيشك واحد شبنا ورقيس هدو هنا وهنا مركز واحد كوحرنتها حاجة كواليتي كوحرنتها دي عاصمتنا مركز تمجالوين كلامد ما هالعورن كلا دي حاجة جريها كورنتدا مقران سيرفيس كأدي جدا دتك ما رتكوش قيانية مقران سيشك وحيالها بحين يسدو كلا مجالوين كل واحد جد وانتهت Puntland taniya markii lacagta shilin Soomaaliga ay meesha ka baxday waxa in badan hoos u dhacay ganacsiga suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Puntland taas oo loo sababeeyo isticmaalka lacagta dollarka ama danabeysan iyadoo dad badan ay ku tiirsanayeen lacagta shilin Soomaaliga gaar ahaan dadka danyarta taas oo keentay hoos u dhac ku yimid ganacsatada qaarkoodna goobahooda ganacsi ay albaabada isugu laabeen Xasan Aykal Universal TV Garowe